wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka ayaa il gaar ah waxa ay ku haysaa dhismayaasha kala duwan ee ku soo kordhaya magaalada Muqdisho iyo kuwa dayactirkooda gacanta lagu hayo waxaana ku soo kordhay dhismayaal cusub oo casri ah kuwa ayaa haatan gacanta lagu hayaa kuwana waa la soo dhameeyay halka kuwa kalena la qorsheynayo in Soomaaliya tahay meel cabsi badan dib badan nabad la'aani ka jirto nidaam iyo kala dambeyn aan jirin midka xoog badanna uu dhacayo midka daciifka ah ayeeshee waxyaabahaas oo dhan badankoodu yihiin dagaal nafsiyeed lagu abuurayo cidii waddankan u istaagi lahayd horumarkiisa iyo hanaqaadkiisa loogana niyad jabinayo muwaadinka Soomaaliyeed inuu weligiis dad gaar ah ugu jiro xindaab cayiman waxyaabahan xumaanta ah laga sawiranayo waddankana uu yahay dhalanteed qofka aaminayo waaqacana haddaba magaalada Muqdisho waxay ku talaabsanaysaa horumar dhanka dhismayaasha ah waa magaalo qurux badan oo indhuhu soo jiitaan oo ay badweynta Hindiya kaga wareegsan tahay 3 jiho waxayna ku talaabsanaysaa horumar baaxad weyn waxayna ka soo kabanaysaa dhaawacii soo gaaray soona daashaday magaaladan Muqdisho waxaa dhidibada loo aasay waqti aad u fog oo ay taariikhyahanadu isku khilaafeen in magaaladani la aasaasay qarnigii 2 ama kii 3 ee taariikhda miilaadiga waayadii hore waxay ahaan jirtay magaalada Muqdisho xarun ganacsi iyo marin kala qaybiya Hindiya iyo Yurub intii aan la qodin kanaalkii Suez koboc badan oo dhanka ganacsiga ah ayaa ka muuqda Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dadka Soomaaliyeed ayaa badankoodu u tartamaya sidii dalka loo keeni lahaa horumar iyo ganacsi ku cusub caasimadda mar qura ayaa xeebta liido dhexdeeda ka heli kartaa adeegyo aasaasiga u ah nolosha sida lalateerna oo magacaha Soomaalidu u taqaano Faynuusta Liido waa doon qaab casri ah u samaysan waxaana ay ka mid tahay ganacsiyada qaybta ka noqday kuwa ay dad badan ku fekeraan in ay iyaguna sameeyaan waxaana maalgelinta shirkaddan xeebta iyo biyaha ku kaliya leh Cabdiqaadir Maxamed Ibraahim haddaba qaab noocee ah ayay u dhisan tahay doonidan yar ee qayb ka noqotay ganacsiga xilliyada qaar guurguura ee dalka laga hirgeliyay tiro dhalinyaro ah ayaa ahaa rakaabka doonta lalateerna waxaana aan weydiinay waxay ku doorteen iyo sida ay ugu faraxsan yihiin in ay ku damaashadaan badda dhexdeeda waxaan leeyahay meeshan jawi macaan badan baan arkaynaa waana Muqdisho adiga way maxaa laga qurux badan tahay maalin walba horta ma imaado jimcooyinka qaar ay imaadaan tani waa doon dalxiis waxa u soo dalxiis taga dad aad u fara badan saa arkaysaan waxa gudaheeda ku yaala
meelo lagu nasto oo ay ku nastaan dadka lamaanayaasha iyo dad kala duwan waxa looga kala yimaadaa 17 degmo ee magaalada Muqdisho. وهبينمو أباريه سيدتي في النمو أيام هذا جونا هلكن واحد تليدو مقالة مقدشو وميرها انت بدن تمشلها لو سو aado xilliyada habeenkii dadka halkan tamashlaha iyo u yimaada waxay u badan yihiin dad da'yar ah markaad maqaayadaha ku teesan xeebtan ama badan aad gashana waxaad arkaysaa gabdho iyo wiilal laba u fadhiyo dabcan waxaana la ii sheegay in shukaansi ama haasaawe halkan loo soo doonto dhalinyaradayna u badan yihiin waa xilliyada ugu fiican habeenkii gaar ahaan 8 habeenimo waxa ka dambeeyo ee magaalada Muqdisho dhalinyarada ay banaanka yimaadaan oo ama casho ay u yimaadaan ama shaah ama baashaal marka laga soo tago maqaayadahan waxa kale oo jira dhalinyaro xeebta iska lugaysa ilaa halkaas la aadaa waqti badan baana runtii lagu qaataa show caasimada Soomaaliya leer macaan baa runtii dhacaysa anigana maanta dadka halkan baashaalka ama tamashlaha u yimid yaan ku jiraa oo xeebta inay ku lugeeyaan leerta macaanna qaataan jawiga nabdoonna runtii xiisi iyo soo jiidasho badan iyo qof walba halkan yimaado ku leeyahay Allah xafido qof walba halkan ku baashaalaya marka waa si lugeynayna insha Allah